سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga qiimaha badan lagu soo dhawaada koorsada HTML oo si taxan uga baahino kanaalkan. Waxaynu qaadan doonaa casharkii 16aad inaga oo ku baran doona HTML link tag. Maxay tahay HTML link tag? Maxay se tahay shaqadeeda iyo muhiimadda ay u leedahay luqadan HTML ba? Waxaynu ku faaqidi doonaa muuqaalkan haddii alla idmo. Linkigu waa shayga kaliya ee laga helayo magaca ay leedahay luqadan HTML. waxaynu soo aragnay kooraska bilowgiisii HTML waxyaabaha ay u taagan tahay. HTML mar afarta xaraf ee ay ka kooban tahay ayaa mid walba gaar loo tilmaamayay, marna laba xaraf ayaa la israacinayay. waana inta aynu u danleynay HT-da ugu horeysa marka aynu gaar ahaan ula baxno. waxay u taagan tahay hypertext oo micnaheedu yahay qoraal xambaarsan. qoraal xambaarsana wax kale ma aha waa linkiga. linkiguna mar walba ma noqon karo qoraal oo kaliya, waxa uu noqon karaa sidoo kale sawir ama video. sidaa daraadeed linkigu waxa uu muhiimad aad u weyn u leeyahay luqadan HTML iyo website-yada ugu abuuraba. website-ka waxa laga yaabaa in aad ka heli karto ugu yaraan 100 linki. sidoo kale pages-ka uu website-kaasi ka kooban yahay waxyaabaha isku xidha ee qofku marka uu click siiyo la geynayo page kale waa linkiga. linkigu waxa uu sida caadiga ka bilaabmaa oo micnaheedu yahay anchor tag, waxaanay astaan u tahay linkiga. waxa sii raaca attribute magaciisa la dhaho href, taas oo iyana micnaheedu tahay tixraac oo lagu dhex qorayo ama la gelinayo magaca ama linkiga aad rabto marka click la siiyo in la geeyo qofka daalacanayo website-ka. waxaad gelin kartaa oo kale dhammaan wixii social media sheegta sida channel YouTube haddii aad leedahay, Facebook page sidoo kale haddii aad leedahay, ama sayn horeba kusoo tilmaanay pages-ka uu ka kooban yahay website-kaasi ayaad isku xiri kartaa oo isticmaali kartaa. waxaynu ku samayn doonaa 3 page. mid waynu haysanaa waa kii aynu hore casharaanta ugu samayn jirnay, labana hadda aynu samayn doonaa insha Allah tacaala. waxaynu aadaynaa editor-kii Notepad++. waxaynu joognaa editor-ka Notepad++. waxaanaynu haysanaa hal page oo magaciisu yahay form1.html. marka laba page ayaynu samaysan doonaa oo kale. si aynu u samaysannana shortcut ayaynu isticmaalanaa Ctrl+N. page cusub baa laynoo sameeyay. waynu save garaynaynaa. waxaanaynu ku save garaynaynaa halka page-ka hore yaalla. waxaanu ku save garaysanay page-ka hore desktop-ka. waxaynu u bixin doonaa home.html. sumada .html-na waa muhiim inaad ogaato oo aanad ka ilaawin. save baan leeyahay, waan save gareeyay. waxaan qori doonaa koodhkii asaasiga ee page-ka. html ayaan halka ka furi doonaa html. waxaan ka soo xidhi doonaa halkan html. halkaana waxaynu ka furi doonaa tagga head. hoos baynu degaynaa, halkan baynu ka soo xidhaynaa tagga head. tagga title ayaynu halka ka furi doonaa. waxaanaynu ku qori doonaa magaca page-ka. waxaan leenahay page-ka koowaad ee home. okay, title baynu soo xidhaynaa. title. halkana tagga body ayaynu furi doonaa. body. hoos baanu degaynaa, halkan baanu ka soo xidhaynaa body. okay, hadda wuu inoo dhammaystiran yahay. halkan waxaynu ku qoraynaa h2. waxaanaynu ciwaan uga samayn doonaa warbixin ku saabsan dalka Iran. waa ciwaan. okay, halkan baynu h2 ka soo xidhaynaa. hoos baynu degaynaa, halkan waxaynu ku furaynaa tagga paragraph b. halkan baanaynu ka soo xidhaynaa tagga b. taggii halkan waan ka furnay, halkan waan ku xidhnay.
inta aynaan qoraal soo gelin page kale aynu samaysanayna kan hore qoraalkan aynu ku sameynay save gareynaa control s page kalena way samaysanayna control a waa new page kan horta marka hore waynu save gareynaynaa waxaanu ku save gareynaynaa labada page ee hore meel ka duwan meesha ay ka yaalaan computerka waxaanu dhigaynaa downloadska magaciisana waxaan ka dhigi doonaa button.html okay waan save gareynayaa halkana waan save gareeyay marka codeskan page kan ayaan soo qaadanayaa control c kan baynu ku paste gareynaynaa control v page kan waxaanu ka dhigaynaa page ka koowaad buu ahaa laakiin page ka labaad baynu kan ka dhigaynaa page ka labaad ee home page ka labaad ee home okay halkan warbixin ku saabsan dalka Iran waxaan ka dhigaynaa xagu ku yaal dalweynaha Turkiga oo qoraalkaasna weyn bedelay marka kan koowaad ayaynu qoraal soo gelin doonaa halkan baan ka soo copy gareysanayaa taas bay ku filan control c page keygii baan imaan halkan baan ku paste gareynayaa control v waa page keyga home ka halkan qoraalkan haddii aynaan break row samayn oo aynaan br qorin qoraalkan oo dhan wuu isku daba qabanayaa marka page-kii buu khalkhal ku keenayaa waxaynu halkan leenahay br break row waan copy gareynayaa control c halkan ayaan ku paste gareynayaa control v line kastaaba barta uu ku dhamaado ayaan dhigayaa br waynu soo kicin doonaa launchina Chrome oo page-keena waxba ka khaldan waynu hubinaynaa waana saxaynaa kan title bay ahayd laakiin time baynu qornay title baynu qoraynaa title okay haduu saxmaya sidii la mid ah page-kan kalena isna time weeyaan aan ka bedelnaysna title markii aan bedelnay control s baan leenahay waxaan ku soo kicin doonaa Chrome ka launchina Chrome aka qoraalkii inoo soo baxay h1 na inoo soo baxday oo ciwaanka ku dhex qornay waxaynu hadda sameyn doonaa inaynu labadan page isku xidhno home iyo form sidoo kalena ka kalena waynu soo saxnay halka time bay title baynu ka soo dhignay imika labadan page ayaynu isku xidhi doonaa page kan form ayaan tagi doonaa waxaan ku dhex qori doonaa linkiga baan furi doonaa href tixraac equal double quotation waxaan ku qori doonaa page kan magaciisa home baan leenahay home.html qoraalka cidda website-ka soo booqata ay arki doontaa in halkan ku qori doonaa qoraalka markaynu qornay waxaynu soo xidhaynaa tag a okay control s aynu page kan soo kicino run baan leenahay launchina Chrome inkastoo uu background-ku akhtar yahay linkiguna uu qaatay midab buluuga aad uma soo muuqanayo laakiin halkan qoraal buluuga aynu ku aragnaa warbixin ku saabsan dalka Iran oo kaliya hadii aynu siino waxa la keenayaa page-kii aynu qoraalka ku soo sameynay home marka click baynu siin waxa la keenay page-kii home waayahay kan laftirkiisana linki baynu u sameynaynaa inuu celinaya page-kii form page-kii home waa kan isna waxaynu ku sameyn doonaa linki kan br baynu sameyn doonaa break row hoos baynu deginaa halkana linki baynu ka furaynaa href equal double quotation waxaynu qoraynaa magaca page kan form1.html
html. kii hore waxaynu u isticmaalnay qoraal sidaynu horeba usoo tilmaanay casharka hordhiciisii. linkigu ma noqon karo qoraal oo kaliya, wuxuu noqon karaa sawir ama video. kan sawir baynu ka dhigi doonaa. waxaynu soo galinaynaa sawir img ilaa inoo soo galo crc equal double quotation. magaca sawirkana desktop-kaynu kasoo eegi doonaa. waxaynu soo gelinaa html 16 sawirka uu ku qoran yahay html 16.jpg. waxaynu soo xidhaynaa taggii halkan baynu ka soo xidhaynaa taggii linkiga ayaynu soo xidhnay. sawirku isagoo baaxad leh oo page hadduu doono wada qarinaya ayuu soo gelayaa. marka inta uu leegyahay ayaynu xadidaynaa. height baynu leenahay, height-ku hala mid noqdo equal double quotation 200 oo pixel. sidoo kale width-kana waynu xadidaynaa, width equal double quotation isagana waxaan ka dhigaynaa 400 oo pixel. Control S. waxaynu kusoo kicin doonaa browser-ka. waa kan sawirkii waa laynoo soo geliyey oo markaynu click siino waxa si toos ah laynoo keenay page-kii form. xaggan hoose haddii aan aado aan click siiyo waxa layna keenayaa page-kii. click markaan siiyo page-kii kale laynagu soo celinaya. page-kan dambe ee button waxaynu ka bedelaynaa marka koowaad magaca. waxaan ku qorayaa page-ka button. qoraalkana waa caadi xaguu ku yaala dalweynaha Turkigu. sidoo kale background-kana waan bedelayaa. style baan qori equal double quotation background minus color. 2 dhibcood midab liimia ayaynu siinay. Control S. halkan labadan b midna xidhan yahay midna furan yahay. waxaynu soo gelin doonaa qoraalkana xaggan baan kasoo qaadan doonaa. tan ayaan soo copy garaysanayaa. inahaasi bay igu filan. Control C. halkan ayaan ku paste garayn. Control V PR break row waynu ku wada sameynay. markii aynu page-kan soo save garaynaynay waxaanu ku save garaynay download-iska. page-kan iyo page-kanna waxay yaalaan desktop-ka. marka waa kala location. habka la isugu xidho laba page oo kala location ana haddaynu eegi doonaa. halkan baan hoos tagi taggii waan furayaa linkiga href equal double quotation. page-keenan button-ka waxaanu ku save garaynay download-iska. aynu page-ka aadno kadibna location-kiisa soo qaadano. right click baan leeyahay property waxa soo qaadanaya location-ka. Control C. waxaan imanaya halkii aan linkiga ku qorayay. Control V. waxaan ku sii darayaa magaca page-ka form1.html. page-kii koowaad wuxuu ahaa linkigiisu qoraal, kii xigay sawir, kana waxaynu ka dhigi doonaa button. halkan markaa button baynu ka furi doonaa. waxaan leenahay input noo soo geli tape waxa lagu dhex qorayna ha noqdo equal double quotation button. sidoo kale name baan leenahay magacu ha noqdo equal double quotation isaguna sidoo kale button. value waxa lagu dhex qoray isna ha noqdo equal ku saabsan dalka Turkiga. waynu ka baxaynaa. waxaynu soo xidhaynaa taggii linkiga. Control S. marka aynu save garayno waynu soo kicinaynaa launching Chrome. linkiga aynu sameynay waa kan. waxaanaynu ku sameynay page-ka button ee yaalay download-iska. marka click markaas iyo si automatically waxa laynagu geynayaa page-kii form. waa layna keenay hoos baynu degi. linkigana click baynu siin waxa layna keenay page-kii home. kan baynu click siin waxa laynagu celin page-kii form-ka. marka waa shabakad macmala oo aynu sameynay hadda. website-yaduna sidaas uun bay u shaqeeyaan. pages-kaas iyo linkiyadaas uun bay ka kooban yihiin.
haddii aynu dulmar ku samayno casharkii, markii koowaad waxaynu haysanay page-kan form, markii xigay waxaynu samaysanay page-kan home oo aynu soo dhignay halka page-ka hore yaalay form, waxaanaynu soo gelinay qoraalkan. Talaabada ku xigtay aynu samaynay waxa ahayd page-kan form aynu linki ku samaynay in la geenayo page-ka home oo kana. sidoo kale page-kan home isagana waxaynu ku samaynay linkigaasna wuxuu ahaa sawir oo waa kan markaynu click siino laynagu celinayo page-ka form-ka. markii xigay waxaynu samaynay page-kan button oo aynu isagana dhignay location aan ahayn location-ka yaalay labada page ee hore, waxaanu yaalay downloadska. marka isagana linkigiisa waxaynu ka dhignay button oo isna intan ahaa, waxaanaynu ku xidhnay page-ka form. si ay noogu suurto gasho inaynu form ku xidhnana waxaynu soo qaadanay location-ka, kadibna waxaynu qornay slash magaciisa iyo formatkiisa. markaynu intaa qornay aynu soo kicinay aynu suurto gashay inaynu markaynu click siinay button-ka in layna geeyo form. casharkeena guud ahaan linkigaas ayuu ku saabsanaa. waxaan rajaynayaa inaad fahmi doonto 100%. wixii su'aal aad qabtaanna waxaad ku soo gudbin kartaan qaybta hoose ee fiidiyoga ee commentiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.